welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مركز عادي أدبادي السلام يا. waxaan ka xumay qoladii dawladda looga soo horeysay maanta inaad meesha ku caajisteen oo waxoogay waqtigeedii kaga lumay baan ka xumahay ay xaal waa ogtiin safarkan inuu socono waa tii loo jiray nacasna loo sheegay fariidna waa ogay meesha lagu socdo sadar Suudaan baynu ku soconaa waxaynu kala qayb galaynaa xafladii dabaaldegii madax banaanidooda ayaynu kala qayb galaynaa sadar Suudaan marka ugu horeysa waxa weeye waa dal inoo furaya اعترافkiisu fursad weyn inoo furaya waa ogeydeenoo taariikho badan baa Afrika ku xirxiran loo oran jiray OAU-ga ama African Organization ama ururka Afrika wadamada ka mid ah wadan xor noqon karaya ma jiro waa sidii isticmaalku ka tagay loo oran jiray sadar Suudaan albaabay furtay waa ta ka go'day Suudaan waa ta wax iska bedeleen halka qiil baa inooga soo baxay fursad weyn bay inoo tahay midda kale sadar Suudaan wadal kulba taariikhisa ninkii abuuray John Grant waqtigii halkan ku jiray annaguna waa markaan halkankii aysan ku jiray Addis Ababa isugu iman jiray isaguna qadiyad gooni lahaa annaguna mid gooni oo lahayn laakiin markaanu dawladdaanu martida aan sugayno waanu soo iman jiray waana dadkeedana insha Allah waxaan rajaynaynaa iyagana maanta guul baan rajaynaynaa inaga sidaas oo kale ka rabnaa in Ilaahay inoogu guuleeyo taateeda inoogu guuleeyo maanta haddaynu halkaa tegayno waxaynu nahay kulligan waftigaynu ka mid nahay qadiyad quraynu wada soconnaa qadiyadda Somaliland inaynu iibgeyno oo dunida aynu ka iibinno اعترافكنا iyo rabitaankeenna ayaynu wada soconnaa kulligeen taynu wada soconnaa taa weeye inaynu ka midowno weeye inaynu meel iska wada taagno weeye cid walba cid aad la xidhiidho cid aad aragto inaad uga warranto weeye waynu soo duulay duulaanka Ilaahay noo guuleeyay maanta uma wada soconay inaynu iskrisaas galino hawl baynu ku jiraa hawsha aan ka soo dhaal wax ka qabano taasaa ummaddu inaga wada sugayso way madaxweynaha kula kaftamo hal su'aal aan kula kaftamo su'aashaas waxa weeye waa markii ugu horeysay madaxweynaha reer Somaliland diyaarad korkeed kala hadlo shacabka reer Somaliland halkan imika maraynaana qiyaas ahaan juqraafiyaan 8 kun oo feet baynu hawada ku jirnaa South Sudan iyo Addis Ababa inuu dhaxaynaa maxaa dareemaysaa mudane madaxweyne waxaan dareemayaa farxad baan dareemayaa wanaag baan dareemayaa waxaan dareemayaa kullu dhammaan qolka anaga dawlad cusub yeelanayay kullu laakiin waxaan ku faraxsanahay hawsha inuu socono iyo intaynu ku wada socono iyo duulaankeenu ku jiro iyo waxaanu soo baxray iyo shaqada aynu qabanayno ayaan aad ugu faraxsanahay ilaahay aad baad u mahadsantahay madaxweyne